iyadoo bishii barakeysineed ee Ramadaan lagu jiro ayaa munaasabad tartan dhinaca isboortiga ah ee dhalinyarada isdhexgalka iyo wanaagga looga goleeyahay waxa uu ka dhacay wadanka Australia magaalo kamida waxaana soo qaban qaabiyay jaaliyada reer Australia ee Brisbane iyo waliba telefishinka caalamiga ee Universal warbixin arintaasi ku saabsan Ibrahim Umar Bafo ayaa ka soo diray wadanka Australia Somali wa aftakhir wa hanini sayastamir koobkan oo loogu magac daray koobka Ramadaanka ayaa lagu qabtay magaalada Brisbane ee dalka Australia waxaana koobkan iska kaashaday ururka jaaliyada Soomaaliyeed ee Queensland iyo telefishinka Universal iyadoo ay ka qayb galeen 12 kooxood oo ka kala socday 12 degmo oo Soomaalidu ka degto magaalada Brisbane ciyaarta ugu horeysay waxaa wada ciyaaray kooxaha kala ah Akashrid iyo Karbi waxaana ciyaartan furay mas'uul ka socday golaha deegaanka Brisbane. Congratulations to the Somali Association of Queensland for the great work that they have done with putting this game of football on. I've seen some great football, which I'm sure the Universal TV have captured. Some very intense football. That first game I saw between Acacia Ridge and Inala. Going to be a fun competition. Played in good spirits. Hard football, but played in good spirits. That's wonderful to see the young men playing hard with passion. I love it. Thanks Universal TV and Somalian community and Somalian leaders. maanta waxaa bilaaday Ramadan Cup saa u jeedaan ciyaarihii xisaabna Ramadan Cup ayaa bilaaday waana ku mahadsantiin Universal TV ka soo qayb gasheen maanta halkan aan ku qabanay ciyaartii Ramadaanka ahayd oo soo qaban qaabiyeen dhalinyarada magaalada iyo community-ga Soomaaliyeed halka maanta waxaa lagu qabtay ciyaar ku saabsan Ramadan Cup oo ay soo qaban qaabiyeen ama ay soo hagaajiyeen oo soo dhiseen Somali Community Association of Queensland ururka dhalinyarada taasoo ay ugu tala galeen isdhexgalka iyo habwadaaga bulshada kale ee Queensland degan inay uga qayb galaan Ramadan Cup-kana ay ku marti qaadeen dhalinyaro badan iyo bulsho badan oo ka soo qayb gashay ay ku marti qaadeen halkan waxaan isugu nimaadnay barnaamij loogu magac daray Ramadan Cup insha Allah waxaan jecelnahay in si fiican inuu noogu dhamaado raggii macnaha dadaalkii juhdiga soo gelin aad bay ugu mahadsan yihiin waxa meesha ka aragtaan waa dhalinyarada Soomaaliyeed oo sportska Queensland Brisbane oo maanta u helay Jaanis Ilaahay amarkiisa dartiis in ay ku dheelaan kubadda cagta dhalinyaradana waxay isku yimaadeen meeshan in ay ka faa'iideystaan Jaaniska inta ay meel kale joogi lahaayeen iyo meel kale in sportska caafimaadkooda fitnesskooda ku jira waxaan halkan isugu maanta bilawnay koob loo yaqaan Ramadan Cup oo sanad walba ka dhaca wadanka Australia gaar ahaan magaalada Brisbane oo ay maanta qaban qaabisay Somali Community Association of Queensland ciyaartan halkan ka dhacday ayaa waxa kooxda Akashrid ay 2-0 ku suul daartay kooxda kale ee Karbi waxaana ciyaarta finalka ama kama dambaysta ay dhici doontaa maalinta ugu dambaysa ee bisha barakeysan ee Ramadaan Ibrahim Umar Baafe wararka Universal dalka Australia warkiyood kala socoteen telefishinkeena caalamiga ee Universal Studio ku yaala magaalada London oo soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige intaas ayaan ku soo qatimayaa tan iyo kulankeena dambe aniga iyo bahda wararka Universal meel kastoo aad naga dheehanaysaan waxaanu idin leenahay Ramadaan Kariim wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh